بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيش سبتمبر 10 كدي لبدا كونية تدوية 10 waxaan joognaa Hargeysa. shalay ayaa mar telefoon waxa uu la soo xiriiray meerka magaalada Oodweyne Cabdilxakiim. dabeedna nabdaadin iyo bariido kadib ayaa wuxuu igu yiri waxaan ku sidaa martiqaad. su-aashii markaan weydiiyey wuxuu martiqaadku yahay iyo halkuu igu martiqaadayay iyo sababta ayaa wuxuu ii sheegay igu yiri martiqaadku waa Oodweyne waxaana la furayaa oo aanu xafladii baalalaynta iyo ballaysinka u sameynaynaa naadiga Cali Sugulle Dun Carbeed. dabeedna anigoo waqti baxnaanaa iskaga jira oo xanuun ka soo kacay waan ka cudur daartay inaanan tegi karayn anoo aad uga xun meel Cali lagu xusayo ama xaflad Cali loo qabanayo inaan ka maqnaado ayaan ka cudur daartay. dabadeedna maqnaansho buuxa inaan ka maqnaado way igu yar adkaatay. sidaa daraadeed ayaan u jeclaystay haddii uu jirkaygu tegi waayey inuu ruuxaygu habeenkaa xafladda joogo. maan weydiin taariikhda laakiin tii wuxuu iga dhigay inay waqti dhow tahay. sidaa daraadeed umbaan jeclay erey iyo laba halkan ka idhaahdo anoo qiimeynaya xaqna wuu leeyahay aanu naga mudan yahay Cali Sugulle Dun Carbeed. qiimeyntaas keligay maaha ee Soomaali oo dhan ayuu ku leeyahay oo ugu yeelanayaa wixii uu galay in abaalkii loo gudo oo loo celiyo. wuxuu ka mid ahaa Cali foolaadkii dadka Soomaalida ee xagga fanka iyo suugaanta curinta iyo hal abuurka. markaynu Cali ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa wax badan. Cali muu ahayn qof maanse curiya ama gabayo ama suugaan sameeya. Cali curinta wax badan buu curin jirayoo mawhibado gaara ayuu lahaayoo ilaahay ku manaystay. hal abuur midhaha tiriyuu ahaa Cali. Cali wuxuu ahaa hal abuur alxaanta curiya, muusika curiya, riwaayadaha curiya, taxanaha sheekooyinka iyo silsiladaha riwaayadaha sameeya oo isagu markaa dee masraxuu saari jiray oo soo saarana wuu ahaaye. laakiin tii awood iyo karti u lahaa haddii uu u janjeersado dhinaca qoraalkana inuu bugaagta ugu quruxda badan ee ugu qiimaha badan inuu Cali qori lahaa. haddana Cali suugaantiisii wuxuu ku dhameeyey sidii ay dadka Soomaaliyeed u xoroobi lahaayeen, dhinac walba uga xoroobi lahaayeen, gumaysiga uga xoroobi lahaayeen, siyaasiyiin u xoroobi lahaayeen, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba ay u xoroobi lahaayeen. Cali wuxuu ka mid ahaa dadkii nafta u huray inay la dagaalamaan gumaysigii iyo dadka Soomaalida in midiidin laga dhigto meel kastoo ay joogaanba. suugaantiisu way saamaysay Jabuuti, way saamaysay qaybaha Soomaalida Itoobiya ku nool, waqooyi bariga Kenya, Soomaaliya, Somaliland. mid uu wuxuu la hadhay ama riwaayadaha u curiyo ama hees ha u sameeyo ama gabay ha u sameeyo. Cali intaasoo kaliya uguma adeegin dadka Soomaalida ah. 93 waxaanu joognay shirweynihii guurtada ee Boorame ayaanu wada joognay. maalmahaas waxaan weydiiyey Boorame waqtiga ugu horeysay. dabeedna wuxuu ii sheegay inuu kontonadii ka shaqayn jiray. Cali intaanu fanka soo gelin xanaanada xoolaha ayuu ka shaqayn jiray. wuxuu ii sheegay maalin uu baqal ama 2 baqlood oo dawaa ka soo kaxeeyay magaalada Addis Ababa dabeedna lug ku keenay magaalada Boorame. adeegga intaa leeg ayuu qabtay. markii gobonimada la helay ee labadii gobol la isku daray ee la raadinayay saddexdii kale dagaalkaana khadka hore ayuu kaga jiray Cali Sugulle. wuxuu ahaa dadkii la dagaalamay musuqmaasuqa, wuxuu ahaa dadkii la dagaalamay qabyaaladda, eexda. Cali markii kadeedkii Oktoobar dalka ku habsaday 21 Oktoobar 1969 xilliyadaasuu aamus gelayaa
dabeedna mar dambe ayuu ka qayb galaya halgankii hubaysnayd uu xoreynta qaran ee SNM waa qof taariikhda iyo sooyaalka hodanka leh cali marka qolooyinkii nood weyna joogay daayirta ee yiri naadiga cali suulaan furayna waa xil culus xilka ku baaqdeen ay aqaadeeno cali qof si fudud loogu dhawaaqo ama xilkiisa si hawl yar loo qaado maaha ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu idinku guuleeyo naadiga cali suulaan ku koobnaan maayo ood weyne xaq iyo xurmaba wuxuu ugu leeyahay dadka Soomaalida meel kasta joogaanba inay meel kasta naadigiisa ka furaano meel kasta maktabadiisa ka furaan idamka ilaahay meelo badan oo kale ayaan ku arki doonaa annaguna waxba idin ka aqran mayno sidii aanu idin la dhisi lahayn naadigaas waan idin soo hambalyeynaa xaflad wanaagsan furitaan wanaagsan ilaahay idin ka dhigo kuwii guuleystaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh